السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan waxaan salaamaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan adduun weynaha dacaladiisa Afrika, Asia, Orobo, Australia. maanta waxaan u soo istaagay magaceygii waxaa la yiraahdaa Sacdiye Cumar Cabdulle Baanafunzi. waxaan u soo istaagay telefishinka wax kala maaha, waxaa waaye dhibaata ay haysato. waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u bandhigo oon arrimaheygii u sheegto. waxaan salaamaa ummadda Soomaaliyeed ka bacdi madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud. waxaan salaamayo kale Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. waxaan salaamaa Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. waxaan salaamaa Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo ah wasiirka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaan salaamaa golaha wasiirada. waxaan salaamaa golaha ummadda ee shacabka baarlamaanka Soomaaliyeed. anigu xamar baan tagay. waxaan tagay 2014 la soo dhaafay. xamar baan tagay anoo ujeedada socdaalkeyga ay tahay in guryaheygii aan u tago. nasiib darro waxaan isku dayay inaan arko Maxamed Maxamuud Xasan Maxamed Xuseen Mugaab. waa aan waay waa arki waay. waxaan isku dayay Xasan Sheekh Maxamuud 2 goor baan waxaan galay madaxtooyada. waa arki waay. guri baa layga haystaa aniga. guriga layga haystana waxaa iga haysto xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta madaxtooyada ilaaliso guutada 6aad. gurigeygaan tagay waxaan isku dayay inaan arko galo. waa li hadaday mar aan ahayn 2 aan ahayn 3 aan ahayn. xabad baa lii qaatay. waxaa la isku dayay in xabad la ugu furo. waa ku tooganaynaa, waa ku dilaynaa, ka bax adiga malihid. aflagaadooyin badan baa lii geystay. anigu aabahay Cumar Cabdulle Baanafunzi wuxuu ahaa nin muwaadina oo leego ka mid ah. wuxuu ahaa ninkii xisbiga Gareed furay. wuxuu ahaa ninkii xornimada Soomaaliyeed wax ka dhaliyay. wuxuu ahaa tujaartii xamar. waligii siyaasad ma gelin, waligiina uma shaqaynin dowlad. nasiib darro waxaa dhacday in aabahay meeshii lagu caayay, aniga lii caayay, layla diriray, in aan dacwooday oon ka tegay oo aan u dacwooday maxkamadda gobolka badbaadada. aan tegay oon warqadaheygii oo dimanyaala ah aan geystay iyo masawiradii guriga. waxaa dhacday markaan geystay in maxkamaddii xukun uu soo riday qaadigii, in askar la igu soo daray, in aan gurigii imid askartii oo ila socotay in la ihadaday. haddana waxaan u tegay Madaale, Generaal Madaale. waxaan u tegay Generaal Gasgas. waxaan u tegay Corneel Sheegow. waxaan arkay Bariise. ciidamada booliiska oo dhanna waa arkay. militariga ma arkin, mana tegin zoonkooda. waxaa dhacday waxaan tegay xaafadda uu guriga ku yaallo waa warta nabadda. waxaan tegay degmadeeda. waxaan yidhi gurigeygaan rabaa. guddoomiyaha waxaan u tegay xaafadda. Yaasiin baa la yiraahdaa haddaan qaldanayn. 3 maalmood isaga daba noqonay. wuxuu ku dhici waayay xataa inuu guriga intuu tago soo fiiriyo. wuxuu iiga baxay gurigaas waa aqaanaa, ciidamada degan intay ka dhacday Cali Ageel dhalay. waa heli waayay. waa ka tegay. waxaan u tegay Liibaan Cali Yarow oo korneyl ciidamada ah oo maxkamadda militariga joogo. warqadahaygu arkay, arrimahaygu dib u fiiriyay. wuxuu wacay korneylkii la dhahayay Duraan. Duraan buu yiri riboor badan oo gurigaas ku saabsan keen. waxaa loo diray korneyl kale ayaa loo diray. korneylkii loo diray wuu tegey. naagihii niman buu ugu tegay guriga ayadoo ugu yaraan ay degan yihiin 60 qof. waxay yeeleen
waxay ka furteen maqaayad, waxay ka furteen jeegaxiir, waxay ka furteen biibito. lacag baa lagu kala qaataa, lacag baa lagu sarrifaa, waxaa ka socdo business. ilaahay muxuu qadaray business aan warqadihiisa haysto oon u sharciyeysnahay oo anoo gabar Soomaaliyeed aan leeyahay in liigu hadado, in la ii diido, in mushaar ay ka qaataan qaybta guutada 6aad, habeenba korneel iyo generaal in lagu bedelo, in aan arki waayey Mugaab oo aan doonay, in aan Yaasiin ii geey Mugaab oo intuu i waday beexaan 4 luuq iga baxshay yiri Mugaab ugu jiifaa intuu ka baxay looma geli karo. war heed Mugaaba meeshii idin dhiibtay yaa dawladdaadna u shaqaysaane sharci iyo dastuur iyo kala dambeyn bayna leedahay hal ii geeyo haddii kala ciidamadan gurigayga dhex fadhiso hal iga baxsho kira kama qaato. waa liigu hadaday, xoog baa lagu haystaa. war maanan Soomaalinimo jirin. waxaan rabaa in jawaabtaas dawladda Soomaaliyeed ay degdeg iga siiso. qabiil markay noqoto anigu waxaan ahay naag digil iyo mirfla digil curadkoodii ah oo reer Baraawa ah ayaan ahay. waxaan rabaa Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari inuu ka jawaabo, asagaa u fadhiya digil iyo mirfla meesha. waxaan rabaa Xasan Sheekh Maxamuud inuu ka jawaabo gurigayga anoo gabar Soomaaliyeed ah sidee ciidamadiisa asaga ilaaladiisa ahayd ay ugu jiraan kirana lii siinaynin. waxaan aaminsanahay inuu Xasan Sheekh arrintan lugna ku lahayn kana warqabin, laakiin nasiib darro aan arki waayay asaga iyo Mugaaba. walaalayaal xamar dadkii u soo dagaalamay oo u soo dhididay oo xornimadii u dhaliyay caruurtoodaan nahay. anigaan Sacdiyo Cumar Cabdulle baan fuuse ah ubaxa kacaankan ka tirsanaa, xamaraan elementaar kaga baxay, inferiore kaga baxay, superiore kaga baxay, jaamacad ku dhigtay. in la dhaca xaq looma leh. guryahaygii shaneemada Nasar walaalahay baa leh, wiilasheenaa leh, waa laga haystaa. Amazon qolada la yiraahdaa degan ama kiraha bixiyaan ama dhinaca baarlamaanka derbi ha ku dhistaan. dadka guryahooda ay haystaane shaneemadii wiilasheenni faraha laga saaro. annaka man nabaad guurinaa ma wadankan laga ceyrinaa see wax u jiraan. waxaan rabaa waxaan xaq u lahaa in la isiiyo gurigeenni kaas anaa xaq u leh, gurigaan u dacwoonayo anaa xaq u leh, dhaxalna u helay, soo barloogadiisna haysto. walaalahayna way og yihiin wax walaal iyo gabadha ila dhalato Biibi Cumar baan fuusi ah oo Cabdiqaasin Salaad Xasan madaxweynaheenu hore uu qabo ayadana guriga looga jiraa. marka waxa waay dhibaato badan meeshan taaganay. walaalayaal Mugaab hana soo gaaro, ilaahay hana soo gaaro, laakiin Mugaab asaga wax qabanayo cadaaladda waday hana soo gaaro. Xasan Sheekhna ha iiga soo jawaabo asna waxa ii qabto si walaaltinimo Soomaalinimo madaxweynahayni uu yahay. dhulal kale oo aan ku leenahay maxaan kuu sheegaa jaamacadda Gaheer oo baar Abuukar ka soo horjeedo oo ah ilaa 200 oo kun oo aan subarloogadooda iyo warqadahooda aan haysanoo dimanyaala ah oo dadna laga dejiyeyna hana looga kaco dhulkeenni. xaqaan u leenahay. Soomaali Maxamed meel kasta ay adduunka joogto oo ay iga fiirsanaysana bal arrintaas aan idiin bandhigay waxa ligala qabto. ninkii awoodeeda leh ilaah baa awood leh, waxa ligala qabto. xaqaygaan u dagaalamaa, xaqaygaan rabaa. dhul aan ku leenahay guri dhul ah oo guryad gadaashood ku yaallo oo gaal shire ku yaallo oo ay uu naga degan yahay nin asagana waxaan rabnaa in looga kiciyo. walaalayaal codsi waxaan ka ahay istaca boobka xumaanta hala joojiyo. baarlamaanka golaha fadhiyo oo gabigooda badankooda iyo qaan gabdhihii aan iskuul ahayn, waxaan jaamacad isla dhiganaynay, dadaan asxaab ahayn, gabdhaha Soomaaliyeed kulli way salaaman yihiin. waxaan rabaa arrintayda in wax laga qabto. aniga in la dhaca maaha gabar Soomaaliyeedaan ahay,
gabdhaha Soomaaliyeed in la xumeeyo la dhaca maaha xaqoodii in la siiyo ahayd priority-na waa inay yeeshaan way idinla dhasheen way idin dhaxeen waa dhasheen waxaa waaye hooyooyinkiini waaye dhaca iyo boobka ha la joojiyo cidda wadooy ha joojiso waa istaqaanaa jooji ceeb waaye waxyaabaha qaarkood ceeb baa loo tagaa haddana haddaan dib ugu noqdo taariikhdii guryaha gurigaas madaxtooye agteeda ku yaalaa uma dhowo shaqo kuma leh SYL hotel ayuu ka soo horjeedaa labada dariiqba wuu haystaa dariiqa madaxtooyadana wuu haystaa wuxuu markii lala laabtana wuxuu haystaa dariiqa Maka al-Mukarrama hoosna waxaa iga xigto reer Axmed Shuqul gurigooda kor waxaa iga xigo General Sharmaan gurigiisa waxaa iga soo horjeedo reer Xaaji Bashiir gurigooda isbaaraa la gashtay askar baa degan hadda laakiin awal anaa dhex deganaa markii dagaalada intuusan dhicin ka hor anigu waxay qabay nin generaal ah Xasan Khaliif Axmed la yiraahdo absuge Washington aan joognay diblomaad buu ahaa meeshuu ku geeriyooday anna ilmihii ayaan waxaan la soo galay Canada oo ilmahan ku korsanayay waxaa intaas dheeraad ah guriga waxaan ka maqnaa muddo 18 sano 20 sano camal ah 20 sano gurigeygoo xiran oo aan waardiye uga soo tagtay waxaa la ii sheegay in la jabsaday in Cabdullaahi Yuusuf madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliyeed uu askartii asaga ilaalada madaxweynaha madaxtooyada ka ahayd uu dajistay kadib Sheekh Shariif askartii ilaalinaysa la dajiyay kadib waxaa la dajiyay askartii oo dawladdii Cabdiqaasin qof deganaa ma leh uu ii xirnaa amaan buu ahaa askartaan baa degtay oo gurigii iska degtay haba haysaan iri maqaalihii guriga waa la socday mar walba mar walaalkeeyaa tagay mar walaalkay kala tagay mar waxaa tagay dadaan u dirsanay intaas waa la aadayay guryaha waa la fiirinayay gurigeygaas ilaa dawladdii Cabdullaahi Yuusuf tii Sheekh Shariif tan Xasan intaba iskara deganayd tan Xasan nabadaa la soo sheegay nabadaa dhalataa la yiri tigid baan goostay anaa lugaheyga ku tagay xabad baa la igu qabtay waa la hadaday waa la caayay waa la ila diray dhibaatada la ii geystay noloshayda inta ka hartay ma ka soo kabsamaayo kabsi ma leh gurigiyo waxaan tagay meel walba la qoday teendha lagu dhistay business ka socdo maqaayad laga furtay maqaayad kale laga furtay laba maqaayada ka furan naag Zahri in balcal yiraahdo oo tiragaal ka ayaan ka imid meelan aadama aqaan oo askariyad booliiska isku sheegayso ayaa gurigeyga dhex degan oo maqaayad ka furatay duraan ayaa wuxuu ka furtay business oo ka ijaartay baraakooyin ay ka dhiseen gurigii waa la dumiyay dhinaca laga dumiyay uu dudunsan yahay dhibaatada la ii geystay maba ka soo midaan ka soo kabsamaayaba ma aha marka waxaan rabaa walaalayaalo gurigeyga saas ahaa aabahay baan ka dhaxlay lacagtayda kuma istireexin waagii horena kiraan ka qaadan jiray waxaa iigu jiray Cali Xaaji Guuleed nin la yiraahdo oo dhintay iyo Maslax Maxamed Siyaad Barre waxa ayakiina dhibaato ka soo gaadhay oo alaabadii u taalay waa laga jabsaday aniga gurigeygii uu ahaa oo deganaa apartment iiga dhisnaa waa la jabsaday waa la qaatay waxeygii frontoy makiinada maxaan kuu sheegaa makiinada bulukeeta ah adigu mood iyo nood wixii la qaatay hal la qaatee gurigii uu gacantiisa lagu soo celiyo nabad hal lagu siiyo hal la iiga bixiyo ciidamada aniga Ottawa ku noolahay Canada aan ku noolahay Ottawa magaalo la yiraahdo telefoonkeygii waxaa waaye 613 404 9242 waxaa waaye wixii arintaas ay qusayso guriga ku saabsan walaalayaalow soo waca ila soo xiriira waa isku dayay madaxweynihii iyo duqii magaalada inaan arko way ii suurtoobi weyse laakiin waxaan arkay wasiirro badan
waxaan arkay janano badan waxaan arkay cali shariif oo korneyl ahaa waxaan arkay korneylkii waxaan arkay kale waxaan arkay dad badan dadkii badnaa qaaraa ila duubtay qaaraa orday qaaraa isku dayay inay wax xalliyaan laakiin xalkiibaa gaabtay arrintiibaa waxay isku duubtay xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraatiga soomaaliyeed ayaa noo dhiibtay marka xasanow waa ku tuugaa gabar soomaaliyeedaan ahay madaxweynaad ii tahay gurigii arrintiisa igala soo xiriir teleefoonkaygina waa sheegay dibna waa idinku celinaa waa 613-404-9242 please call me waxaan dib ugu noqonaa in yar oo guriga ku saabsan October markaan aaday November markaan aaday Soomaaliya waxaan yeelay oo guriga aan aaday oo dhibaatooyinkiisa aan la kulmay waxaan aaday maxkamadda badbaadada horeyna wuu soo sheegay maxkamadda badbaadada gobolka waa ii xukuntay gurigeyga markay warqadahaygii wixii arkeen warqadna way soo daba dhigeen ay leeyihiin laga baxo warqadii 3 bari muddo ay siiyeen 3 bari oo muddada la siiyay iyo isbuucba way diideen inay askartii guuraan oo ay ka baxaan waan ka tagay waxaan u tagay Liibaan Cali Yarow oo ah korneylka maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sido wuxuu u wacay korneyl kale ayuu u wacay korneylkii kale ayuu wuxuu ku yiri ordoo arrinta gurigan duraan riboor ka soo qor riboor waxaa laga qoray oo aan haystaa duraan uu leeyahay aniga guriga waa la ii dhiibtay xasan sheekh maxamuud aa ii dhiibtay aniga guriga shaqo kuma lihi kamana haysto waxaan isugu wacay gogol baan dhigtay 3 nin oo Axmed Minister ka mid yahay oo duraan iyo anigana kala dhex galay iyo wiil Cabdullaahi Ibraahim Cilmi Bulaale la yiraahdo oo aan kala tagnay oo korneyl ciidamada ahaan jiray oo aan 2 wiil u dhalay intaba waa la isku yimid waxaan isugu nimid Central Hotel waxaa la yiri gurigan gabadhaana leh warqadaheeda caawe warheed maadaa siindika ahayd warqadaheegi maxaa ka aga jiro iiga bax gurigeyga maya guriga waa lii dhiibtay calaa ayat xaal waa isku afahmi weynay waa ka soo dhaqaaq waa ka soo tagay waxaan u tagay taliyaha madaxweynaha arrimaha sharciga gabar baa ii geysay waan u tagay waxaan iri waxaan rabaa dibaddan ka imid gurigaas ama muugaab halii tuso ama niman yahow xafiiska xataa halii tuso ama niman yahow waxa leela qabto si tolnimo iyo Soomaalinimo ah waxaa la yiri orod maxkamadda militariga iyo badbaadada aad badbaadadii aaday badbaadadii qaadi la yiraahdo Maxamuud ayaa arkay i wareystay warqadahayga arkay xukunka riday oo yiraahdo ka baxaan markaas waa markaan Yaasiin u tagaayo oo aan aaday xaafadda orientationka gudoomiyaha oo aan is arkayno marka guriga qisidiisa waa saas gurigana hore ana u deganaan jiray aabahay baa lahaa dhaxal baan u helay qof kale ina baan fuuso ila shirka ah ma jirto ana dhaxal u helay anigana 7 wiil oo dhalay iyo 2 gabdhood intaan ayay u ahay oo 9 iyo 10 ah intaba way taagan yihiin way joogan marka bal horta aniga la soo xiriiro ama kiraha laga siiyo gurigii ama guriga laga baxo waana ku mahadsantihiin inta idhageysatay inta u dacwooday oo dacwadaydu u fidiyayba waad mahadsantihiin ummadda Soomaaliyeed saad u wada dhantiin waa idin wada salaamay mar labaad arinta labaadon caawa aan u fadhiyo halkan telefishinka waxay tahay degmada Baraawe waa degmo ka tirsan 3 shabeellada hoose Baay iyo Bakool 3 la isku daray caasimadna looga dhigay waxaa nasiib darro ah gabdhihii reer Baraawe in habeen iyo maalin iyagoo xaamila ah markay foolanayso oo ay dhali weysaba la soo qaado oo loola soo ordo isbitaal ama Xamar ama Marko
dariiqana ay ku nafwaayaan ilaa hadda intaan maqlay dhowr iyo 10 gabdhood ayaa ku nafwaayay waxaan ummadda nebi maxamed iyo ummadda Soomaaliyeed ka codsanaa baraa waan rabnaa inaan ka dhisno isbitaal gabdhahaas lagu badbaajo anigu oo tabaan deganahay dahabshiil ha lagu shubo nin walba wixii karaankiisa ah kii $10 ku shubay kii 1,000 ku shubay kii 100 ku shubayo waxaan dhisay borjeedan subsanay injineer baan u dhiibanay oo ducaale la yiraahdo ayaa suubinayo gobolka baraa waxaan rabnaa in aan ka dhisno isbitaal weyn gobolkana wax taro gobolada ku dhowna wax taro waad mahadsantihiin workshop ayaa waxaan ka qabanayaa Ottawa si gabdhaha Soomaaliyeed oo ay ugu horeyso Axmed Gaballe ay arintaas wax kala qabato dumar Soomaaliyeed hooyooyin ayaa dhibaato ku leh nin dad dhintay isbitaalka haddii qof dhinto hore laga duugaa mayd meel lagu keediyo ma leh isbitaal ma jiro emergencies wax la yiraahdo ma jiraan paramedic ma leh dawladda Soomaaliyeedna inay il gaar ah ku fiiriso ayaan rabaa marka waa mahadsantihiin programkaasna waan wataa oo waxaan rabaa in ummadda Soomaaliyeed oo dhan dahabshiil Sacdiya Cabdulle Sacdiyo SADIA Cabdulle ABDULLE ay ugu shubaan accountkeeda lacagtaas wixii karaankooda ah waadna mahadsantiin Soomaaliyey meel kasta aad joogtaan adduunka gabigiisa